bilaaba ya wallahi oo billahi oo tallahi ninka la cali abdi wardheere cali jeeb ku jire waa masiixi aan diinta islaamka haysan maalin kasta oo video suubinayna dhaar ayaa la socoto sababta u dhaarana ma yaqaano dhaarta waxa ay taana ma yaqaano nin kasto hal dhal isku soo jabiyo waa sida tan ay u hadlaa cid wax kaga celi kartana ma lahan adigana bilaashan kuugu la hadleena bilaashan ku soo qaadanay laakiin xoolanimadana u soo qaadanay meesha taa dadkeena ku tusinaa xoolata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديga qaaliga waqti kasta ee ku tahay wanaagsan oo wacan waa mar kale video kale to aad u xiiso badan fadlan haddaan ugu cusub tahay page kan follow de videogan hadduu ku soo gaaro fadlan la grey si uu u gaaro dad badan oo xaqiiqooyinka aan la socon si aan xaqiiqooyinkan aan u gaarsiino dad badan waa inaa fadlan noo la greysa videogan si share greysa waad gaarsiisaa dad yooga saaxiibadaada kale ah page kan aad follow tiraahdo aan gaarsiino kumanaan kun oo qofood yaana laga xasidin hadee marka aan ku socono videogeena ayaan bilaaban doonaa waxa miiska noo saaran nin la yiraahdo daahir cali soo dad badan ayaa xaqiiqada indhaha ka dabooshto dad badan ayaana ka hadlin dad badan ayaa cabsado laakiin ma kaga cabsan doono qabiil ma kaga cabsan doono dadnimo ma kaga xishood doono waxa aan nahnay laakiin si xaqiiqada saxda ayaan sheegi doonaa waxa miiska noo saaran video oo xalay oo kaga soo hadlay oo ku sheegay ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir Cali Yara Cali ayuu wuxuu ku sheegay inuu yahay nin aanan muslim ahayn oo yahay masiixi sidoo kale wuxuu sidoo kale u gaafay madaxweynaha qaranka madane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sheegay inuu yahay hogaamiyaha masiixiga sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa xaqiiqooyinka saxda ah sidoo kale wuxuu ku sheegay inuu yahay Cali Yare nin gabdhaha ku xiro shaqada intaysa ka dalbanin inay u yimaadaan calashan timing oo siiyo waqti ay kula kulmaan laakiin se xaqiiqda saxda ayaan ku sheegi doonaa xaqiiqda saxda ma kaga hari doono daahirow waxa aawad wallahi hadada joojin waxyaabo badan ayaan soo ifif bixi doonaa dadka shacabka waxaan u sheegi doonaa nin yaana loogu helin waxa uu ku yahay dadka qabiil haduu yahay wax kasta oo yahay naba yaan loogu helin videogan aan guda galno waxaan ku bilaabi doonaa videogii xalay oo soo dhigay oo kaga hadlayay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir Cali Yara Cali waliya isgaaraba aan bilaawno videogan asla aragno bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabayaa wallahi oo billahi oo tallahi ninka la cali abdi wardheere cali jeeb ku jire waa masiixi aan diinta islaamka haysan sida wada aragtaan oo xaqiiqda saxda ah waan iska dhaaranaya maalin kasta oo video suubinayna dhaar ayaa la socoto sababta u dhaarana ma yaqaano dhaarta waxa ay taana ma yaqaano nin kasto hal dhal isku soo jabiyo waa sida tan ay u hadlaa wuu dhaartaa wuxuu ku dhaartana ma yaqaano ma fahmi macnaha dhalo isku soo jabiya dadka dhan ma wada fahmi karaan laakiin xaqiiqda ayaa sida taa ah wuxuu ku dhaaranayaa inuu yahay nin masiixi ah ku soco afkiisa ayuu nooga qiray waxaan u qabsanayaa marqaati gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliimo Yarey ee Xaliimo Yarey oo qabsanayaa waxaan u qabsanayaa ninkii la yiraahdo Bicir Nuura oo qabsanayaa burjumka markaan joognay kitaabka quraanka uu noogu dhaartay wuxuu yiri waligay ma soomin mana salaadin waxaan ahay masiixi aan aaminsan wuxuu dhahay laba arin isma qabato laba arin isma qabato ninka muslim ma ahan ayuu sheeganayaa uu yiri marqaatiyaan u haystaa leeyahay wuxuuna ku dhaartay oo dhahay kitaabka quraanka kariimka ah aqligaagu ha shaqeeye nin aanan muslim ahayn kitaabka quraanka kariimka ma ku dhaartaa aqliga ha shaqeeye ma ku dhaartaa nin aan muslim ahayn kitaabka quraanka kariimka ah waa may su'aasha jawaabteeda macnaha wuxuu ku dhaaranay maxay taa marka waxay jirto waxa Soomaali wuxuu ku maamaaday gar aan leedahay oo kugu soo laabatay ayaa jirto macnaha meesha daqiiqad qaldatana waa saxi kartaan laakiin xaqiiqda ayaa sida taa ah ninkan wuxuu sheegayo wax jira ma ahan laakiin wuxuu ku raadinayaa waxay tahay waa fiyus nin oo wax ka qaban kara haba yaraateen ma jirto cid oo wax ka tari karo oo ka joojin karo wax la yiraahdo inuu ka mid noqdo xildhibaanada hadda la soo dooranayo cidna kama horeysaay karto yaab isgaaro oo sheekada hadda bilaw tahay Cali Yara noo sheegay hadda bilaw tahay naadir wali yaab isgaaro ku soco islaamka horta qofka oo farmaajo noo wado farmaajana waa la mid waxa ma dhaama sidii aniga la tahay
waa kana meesha oo ku fijaa'ifeenayo madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku sheegayo inuu yahay asagana masiixi soomaaliyay ninka sidataa u hadlayo miyaad weli aad garab siineysaan ninka dadka sidataa u jaa'ifeenayo isku sheegayo inuu wariye yahay wariye maxaa ku taqaanaan ma sidaan uu ku yahay wariye oo investigation ah hada ninkii yiraahda ha waxaa tahay qabiilista ayaa tahay ana hadda xaqiiqadu ku sheegayo meeshana ka tag looguma talgelin qabiil qof in loogu heliyo meeshan xaqiiqada saxda ayana ku soo ifbixinaya ninkan wuxuu ku hadlayo Soomaali badan ayaa fiirsanayso Soomaali badan ayaa leh waa saxan tahay Soomaali badan ayaa leh waa qatar tahay ya ninkii dhaho qatar tahay ha is ogaado inaa qabiilista tahay xaqiiqdana waxay tahay qabiil way ka dheertahay xataa arrinka nin aad ugu hiirinayso inuu qof gaaleysiinayo adigana aad leedahay waa saxan tahay ma jirtaa nin kasta oo dhalo qamle isku soo jabiyo waa xaaladan ayuu ku jiraa macnaha ummadeenu dadkan halaga badbaado dadka wax dhibaatada ku wado xaqiiq wallahi inaan been idin sheegin ku soco waan aniga ka shaqeeyay waagii qoloyinka Soomaali masiixiyiinta inay farmaajo taageeraan oo dhahaan ninkaas noo dhashay halkay isaga xireen waa halkaas taasaan leeyahay dhalinyarada beesha habar gidir waxaan leeyahay Ali Jeeb ku jiray muddadii uu joogay gobolka Banaadir wuxuu sameeyay waad ogtihiin wuxuu idinku sameeyay waa ognahay sidoo hadda idin dhaqmayna waa ognahay waxaan leeyahay waxaad ka qaadan kartaa ka qaata waxaad ka cuni kartaana ka cuna laakiin isaga laba gooraba nin nool ma aha qiyaaliyo ku nool yahay والله waxa ku nool qiyaaliga waa asaga wuxuu kicinayo waa dadweyne ragga oo kicinayo oo hadhootina soo istaagi doono dhihi doono caliyara ma ka yeelan ragga dhihi doono wallahi waa qabiiliste waliba xataa qurmay dadka waad ka hooseysaa waliba xataa ninkan wuxuu kicinayo waa cidi kacda cidi kacis anaka kala ma ahan dadka aqoonta leh ma kacan dadka cilmiga leh ee aan ku dhaqmin qabiilka xun qabyaalada qurunta ku dhaqma wallahi inse ka celin runta ay u sheegayaan Soomaaliyay ninkan ma aha nin dad wax ugu qaban karo habar gididnimane hadoo ninkaas wax ugu celi karo wallahi wala isla jooga xaqiiq wallahi cid wax kaga celi kartana ma lahan adigana bilaashan kuugu la hadlayna bilaashan ku soo qaadanay laakiin xoolanimadana u soo qaadanay meesha taa dadkeena ku tusinna xoolata ku soco ad ii sheegtaa yaa guuleystay yaa laga guuleystay yaa guuleystay yaa laga guuleystay wuxuu la jeedo ma taqaanaa wuxuu u hiilinayay xilliga dhibaatada jirtay oo ninkan hurinay waxay tahay dagaal sokay inuu kiciyo wuxuu ku noolaay cunto iskor saaran amni wadan iska fareesh ah oo cidna aan dhibaato ku haysan ayuu ku noolaay laakiin maantay ninkaas ayaa wuxuu leeyahay yaa guuleystay waxaan laga guuleystay dadkii qaran dumiska ahaa anana ku sheegay waa laga guuleystay waxa dalbateen aaw intee geysteen yaa idin wax idin qabtay kuma taa ku soco inaad tiraahdo waxaan tagayaa Samareeb oo kursi ay habar gidir leedahay xildhibaan baan soo qaadanayaana waxay la mid tahay qiyaaliga maalinta aad ku noolay Soomaaliya ninkaas ma dadka kursi ka celi karo runta aan isku sheegnay ninka kaama dadka kursi ka celi karo wallahi inaan habar giridnimo xataa iska daahay dadka aa ka dhalata maanta way ka shaleeyaan in adiga ka dhalatay way ka shalaayaan in adiga kale ta ka dhalatay sida taa u hadlayo dadkana gaaleysiinayo ogow qofku wuxuu seenada ku tilmaamto adiga ayaa noqdo ku soco ha ku riyooni inuu qof habar gidira Ali Jeeb ku jira taageero waad dishay hawiyaad laysay habar gid baad laysay ninka saa u caytamaya tahay ninka saa u baqbaqlahayaa tahay waxa lagu haysto waxa waaye qofka wuxuu taageersan yahay shakhsi ayuu taageeraa wuxuu ku taageeray wax qabadkiisa ayuu ku taageeray qabiilku ma uusan taageerin cali waa taageere madaxweyne wuxuu ku taageeray wax qabadkiisa wuxuu ku taageeray sida wax ugu shaqeynayo sida dadka ugu adeegayo uu ugu taageeray ayuuna ku taageersan yahay waana nin mowqif adag waa sida aniga oo kaleeto mowqifkaygu uu adeega wuuna cad yahay qofna qabiil ugu hilima aniga hal midaan ku sheegaa haduu walaalkayga yahay qof wax tar ah wax qabanayo waa u sacabtuma uguma sacabtuma walaalkayga waa tan xigta waxay tahay haduu walaalkayga xun yahay oo xil hayo waan ka soo horjeesanaya xaqiiqda ayaan u sheegaya laakiin ninkan waa magaratada ku dhaxnool Soomaalida waalida dhaqanto waa ku soco
wixii aad ciddan ka hesho ayaadna leedahay warkanu intaas ayuu iga dhan yahay warkan la soo geli mayee caliyow war waxaan ku dhameeyey dhuusamareebaan noo ballana loo joogay dhuusamareeb imow haddaad kursi ka soo qaadda adigaan aabe ku leeyahay aabe ayaan ku leeyahay ninkan wuxuu joogaa dal Yurub oo jooga wuxuu u booteenayo waa gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir Cali Yara Cali ayuu wuxuu leeyahay nin gobolkiisa uu booteenayo leeyahay ma kartaa noocaas waa ninka marka dadka marka ninkan u sacabtuma ay leeyihiin waa fiicanta waa qurxoonta waa wanaagsan tahay in aad arsaco aad leeyahay inuu wax ka qaadi karo ma taqaana waa la isla joogaa in aad waa boqol jir waa ninkan waa boqol low waa boqol low qof aa wax ka qaadi kartaa beerati ma jirto عند أنت أديكسو عبتويد وجود ما يستسوء أديكسو سحر دارتنا أديكسو عندنا حكاية من قاعد كتير على يرى علي ماذا نقول يسوء